iyo basaanti kubracaan dubkucinayo aan baxana alla adiyo hooyada ku yar horta adduun anu saatan wuxuu yiri alla daayine alla waxaan ahay nimanka daarooda alla daayine waxaan ahay hartiga dowladda diin la kala roonay waxaan ahay shirshooraha dafira been hadduu garee maxamuud garaadka dagaal doonayaan ahay waxaan ahay gaariyaha dega labada daamo marka maxaa adeerkay lahaa waxa fiita baawarka iga dhigay waa family aan ahay wayuu ahaa waxaasoo dhan waa niman dhulbaanta ah waxaa iga dhashay aniga adduun saaka maanta Soomaali taariikh nin loo sheegto wax oo la dhihi karo hebel baa waxaa sameeyey waa qaarajiye iyo ina dad labaduba markaan u gaariyaha ka digo waa maxamed u gaariyaha waa laba nin oo maxamed u gaariyaha hay adiga haddaba maxaa kaa dhashay maxaa tahay war waxaa tahay miskiinka miskiin ku dhalay ee qurjiga ee maanta buuhoodle ku dhiban ee maanta lagu dul ilaalinayo ayay maxaa kaloo tahay war aniga maanta waan kuu sheegay war adduun intaad ka degtid axmed garaad isku gudageeyo adduun intaad ka degtaan waxaa leeg taleex taleex baan ku yiri wiilka nuur axmed habar kale kuma taraxdo habar kale ma agdegnaa habar kale lama degto haye adiguna waxaa rabtaa inaad ii sheegatid buuhoodloo aad 20 cayayaan kugu xiraysan waa buuhoodlo oo dadku dhan baa ku xiraysan haye marka xagga siyaasad la eego qof saameyn adduun ku yeesho adduun waxaad ka leedahay maanta marka siyaasad la dhaho waa xagla toosiyey inacami bal xagla toosiyey inacami maxay yihiin xagla toosiyena maanta wakaa buuhoodla ku dhex baaba'aya inacabarna madaxweyne ku-xigeen baa mar noqday markii kalena waa safiir buu yahay waa safiirka soomaaliya u fadhiya etoobiya ilaahay baan kuu dhaaray inaad qurji dhala tahay adduun inaad saa ka tahay baan kuu caddaynaya haye dagaalkii haddaba aan kuu galo waxaad tihiin marka ay soo wada raacdeen xataa garaad isku soo darsateen jaacsi aad la dagaalanteen ninkii yimi xataa ugaadyahan oo dhan may aan baharsanayay waa maalintaan inay ka rarayey laasaanood dagaalkii biyo ma weydo waa ninkii kaa rarayay laasaanood baa oo maalintaan lahaa cali gari sidaan gubadka u jaray gacaladiisii iyo galbehareeg waataa ka dhigay ganna colaadeeda galbadiisa maantaan jarjaray gobolba meel aadiyay anigoo gasaaskii hoo jaray may gallaysan gobolada ka yaacay dheheen guri ma haystaanoo laamiga ka gawsay dheheen aan gorqodanay oo godadkaas ayay wada galeen gabin cadaado horta waa anigu kiidkaa kuusay berigaas baa iga yaacday laami adduunka waxaad degtaa waa dhul safeyd area waa dhul saxaraa aan xataa marka laata canood ibaaraysid waxaad u taqaanaa caasimad inaad tihi alla adiga aabahaa ku yaal haddaba anigu maxaanahay qorqoorku dhalee doobiya kii adeerkaa baa lahaa war haddaad 2 wasiir yeelateen oo kala wacnaan doona waa adeerkaa ku lahaa yuu ahaa ina dadku loo ahaa dee haddaad 2 wasiir yeelateen duru wacnaantooda inaad waayo iisii wadaan soo wad noqon mayso aniguna haddaba maxaan lahaa alla adiyo hooyadaa ku yaal waxaa fiita baawar iga dhigay waa faamilkaan ahayee ka fogaada maanta oo kalaan fitirayaaye waraqaha fallaydhagaa ka carar yaa falfaladiina adigoo fasaad iyo wax wadayaan ku filfilin nafta fiican iyo weyda waxay kala fagoobtaay axmed garaasintadii uu carabka iyo fooda gelin waay waa markaan u laagtaamid ka aagsanay war anigu waxaan anigu kuu sameeyey maxaaba ii gelinaya wax dad kale kuu sameeyey tii aan anigu kuu sameeyey faysal maxaad xasan waa aniga ina adeerkay waa ninkii buntland joogtay oo taliyaha ka ahaa waa wiilkii ay ninka labadii isku xigabaan in adeerada runii ahaayeen waa nimankii laafcaawin ka caayay hay maanta xaggaad adduunka digantihiin buuhoodlaa ku wada aruurtaan ciidda yara buuhoodle adduunka markaad ninka buuhoodla kenyaada birta soo istaaga wuxuu yaqaanaa waa tariib ninka tariib jarmal ku galay iyo kalaata anu soo galay labadu waa isku mid alla idinka hooyadin kuyaan maxaa tahay qurji dhalay haye adduunku waan kuu soo gabagabay siyaasi maanta marka la dhahona intaasaad ka tahay anu yaanahay wuxuu yidhi adigoo daldheeriyo fadhiya dumadii shaxdaadigoo degan markay daayinkood noqod markay laba rasaasoo digtiri dowlad yaay noqod karaash maalintuunu dalyimi sowdalmaan helinoo doqon yahay adaigu habdee daalmawe oo maalintaan naftu ku haysay oo wiilku ku helinay maalintaan geelaa intaan wada qaatay fool hawiye muxuu lahaa anigaa dhulkaagii galay oo dheega kaa jabiyey anigaa sidii dhagax la galay ku dharbaaxeeyey anigaa markale kaa dhacdhacday dhabanna waaweyne anaa halaha aad dheeman geela aad lahayd dhoodi maalaayo geelaagii baan dhoodi ku maalaya yuu ahaa waa wiilkii aadan cali ee intuu xoolihiinni ka soo qaaday buuhoodla dhexdiisa inuu ku maalay geeliini war mahanti baa leedihiin dagaalkii biyo la-aan baa idinka qaadnay xoolihiinoo dhan axmed garaadoo dhan waa anigu shooladii ku jira
adduunka si aad ugaaryahan uga cararayseen u baxsanayseen ba waxay noqotay inaad kelinka shanaad ku xirootaan addooma yahow addoomu ahaaday warma idinkaa taariikh sheegan karaa bal maanta maxaa sheegi kartaa adduunka intaan ka dego baan ku yiri iyo intaad ka degtay isu eg qurjijal isku heer hawskaagana ku darso oo dega buu hoodle adduunka hal degmaad ka jirtaa halkaa degmada wiilka ku siiyey I am salaan maxaa daflu ahaa macalla adiyo hooyadaa aduu haddaba maxaad tahay markaa mudhimaadahay waa meeshu adeerkaa kalaa haddii aad laba wasiir soo hesheen waa anaad beriga ilahayd haddaad laba wasiir soo hesheen ka maanta talinaya waa aniga ka wax laga weydiiyaa dhulba hata waa aniga ka hadlaa waa aniga ka awoodda kule waa aniga ma ninaan ugaaryahan ahayn baa kor u kaaji karaa allaa adiyo waxaa tahay baa ku yaale ma ninaan ugaaryahan ahayn baa kibri karaa ma ninaan ugaaryahan ahayn baa doobiyi karaa xilligaan doonaan anu doobiya adduunka intaan ka dego waa taqaanaa calab baa kuu taale adiguna qurji yar oo meeluu haysto iyo meeluu dego ninka baan ahay laasacaanood kaa garweeriyey oo kaa baaciyey oo adiga kaa eriyey oo adiga kaa baxsay addoon yahow addoonku ahaada addoon yahow addoonku ahaada ninka adiga kaa eriyey baan ahay war maxaad ku hadli kartaa anigaad addoon ii tahay cid kale intaan la gaadhin ay am wiilka addoonka aduu ahayd waa wiil ugaaryahan waa wiilka soo doono intuu kuugu doobiyey kaa caydhiyey adduunka ku baday inaad ogaadeen silka la geshay inaad aniga iga cabsootid waa waxay kaliftay inaad ogaadeen silkiisa ku carartid muxuu lahaa markaad iga carartay aniga waa waa xanoosh oo markuu xanoosh ka hadlayey ee aad aniga dhulka iga carartay ee aniga iga baqay wuxuu yidhi rasaas maalintii lagu ragdaday ee ila karareeyey caligariga raaf la dhigay midiba raaf aada riyahooda maanti la jaray way irmaadeen caqli ma lehe caligarigu waa caynta wadeed horta yaa tihiina xun garaago isubkekeen war anigu wiil abtirsi maanta le maanta heerka dhulbaanta laleeyahay waa la haystaa waa heer hebel waa taqaanaa waa caligari maanta duduble wuxuu taagan yahay war wiilkayga DNA-diisaan baadhanayaa isi nacalla idinka hooyadii uu ku yahay waa tii markii caldhuuxna lagu lahaa aday dhuunta kaa soo galeen kuwa dhaqaale xune maada xaggaad ka keentay odayga caligariga waa la dilay si u dhashaa wiil horta bilxad garaa caqliga dadka ugu sheekaysaa wuuba la dilay odaygii weynaa la dilay oday la dilay caruurta u dhalaa nacalla idinkii tumaanay horta adduun taariikhdaafaa ka tihin anna waxaan ahay wiilkaa qooqa ee markuu doono hadlo adeerkay waa ninkii lahaa cayayaan haddii layska dhigo aara iyo shoogo aar coobiyaan hoo aan baxaana nacla haddaa carada caruur yahay yaan layni kala cayanay ninkoo casayn iyo udoon arqiyayaan noqona midba yuuna ciidkiina geni kala cagoweyne aniguba haddaa ciilbax iyo col u bixiya horta yaan ahay anigu wiilka baan ahay adduunka ku kibra fakin ugaaryahan war ugaaryahan waa ayo ugaaryahan oo dhan horta in lagula doontaa maaha in qanuun muslimiin lagu dhagaa waa qawaan xumo oo dhan lagula raadsadaa maaha ilaahay heeqinaan maanta la rimay ugaaryahan intuu digo aadan dii karin intuu joogo aadan joogi karin intuu digo aadan dii karin miskiin yahow miskiinku ahaaday war ninkaad dhulka uga carartay waa ayo war ninkaad addoonka u tahay waa ayo war ninka maanta suu doono kaa yeelo kugu dambeeye waa yaa dhulbahanta maanta wax laga weydiinaya I am waa wiil ugaariyahana wiil kale looma daba fadhiisanayo maanta xadeyd haddaad tegtid adduunka shaxda haddaad tegtid jidali warbal adduunka annagaan isoqoon addoon yahow idinkuna laba midh oo midh kasta midhka kale dabada ka usraadsiyo waxaan ka maqli jiray dadka hore adduun haddaad aragtid waxay saada laba midhoo meel wada jooga yoomal qiyaamada soo socda diyaar garow nacla idinkii hooyadii ku yahay horta dad baa tihiin ilaahay isku soo ururiyey oo meel yar loogu wada xereeyey oo bartaa ku wada noolaalay addooma yahow addoommuu ahaaday waa dad aan hadli karin oo taariikh sheegan karin oo waxay yihiin sheegan karin war maxaa tihiin bal mutaas ii sheeg awowgayba beri sidan yidhi 38 awaanba aniga iga dhashay oo wada taariikhda ku wada xusan oo maanta aniga adeerkaa lasoo heli maayo oo leh anaa sidana aniga adeerkaygu wuxuu dhahaa anaa sidana horta qofku marka hore tiiso daryeelaa tu kale ku dara adeerkay waa ninka maanta le anaa hebela anaa heer hebela anaa heer hebela laakiin lasoo heli kari maayo adeerkaa anaa heer hebel dumuu sheegan karaa waa inuu meelo kale isku qawqawdiya adeerkay waa ninkii lahaa waxaan ahay ugaaryahanka degan ma dhihi karaa adeerkaa ma lasoo heli karaa anaa heer hebela macallaa kuu yaal lama soo heli karo addoon yahow addoonku ahaada waxaan ahay adduunka ninka dhulbahanta maanta ku tiirsan yahay jidibka u tiirsan oo u taagan waa aniga maalintay kugu xumaato maalintay kugu dhanaanaato wiilka kaa kiciya ee naftu ku qabsato ayaa mugaaryahan shalay wuxuu ahaa axmed karaash wiilkaad ku baxsanaysay
kii intuu sida shoolada kuu ururiyo kulaha ina keen dhulbahaatoo dhan intuu ka haysto kale xigeenayay sida xadhigaynu ku watay wuxuu ahaa cali ciise cabdi calab baa idin dhashay ma idinkaa taariikh sheegan kara addoomayow addoomu ahaa ma idinkaa faani karaa ma idinkaa wax ku sheekayn karaa wuxuu yidhi mar haddii xaajada markay dhabaqdee dhiigga kala doorto ninba dhagaxa maantuu ka dhugo dhabaladaysiga adbadheecan baa kaga ahay dhida galeed ee axmed garaad markii laga dhigdhigay dheeman iyo luba axmed garaad markii laga dhex jaray dhabaradoodii oo sida dhaaca loo gooyey bay dhiigta carareeno midba dheeg ayuu u oofoofay oo dhida caligari sidii loo gondolay gobolba meel aadiyo midba gees ayuu cararayo gudufyad liilaayo midba gaadhi meel yaal ayuu gacalku furaayo gacan carabka wuxuu soo dhahaa yaan lagaa gudin oo aadba galabta maantahay ahayd waa iga goloteene haddaad galabsi doondoonaysaan go uma noqoteene gabal carabka waa wada taqaan goodiga daaya hadda adigu waxaad doonaysaa hawda inaad gasho maanaha garway kaaga dhigay geelayada fiican maanaha sidii geel la jaray ku garweyneeyey maanaha mar qura kaaga galay ganab cadoodeed maanaha sidii geel maanaha sidii cawl la goray ku garbaareeyey maanaha qalbi waxaasoo dhan wiilka kule waayo waa wiil gaadhiyahan allah kuu yaale wiilka saa kugu doodinaya ee kuu warqabeynaya wax kale war maxaan taariikh kale ka doonaa waxaa iga badantay u gaadhiyahan adiga kugeeyey waxaan ahay wiilka intuu aan kugu xansuuqay haddana kaa saaray allah ku dhalay intuu kugu dhex xansuuqay war ma adiga wax iska celin karaa addoon yahow addoonku haaday adeerkaa xagla toosiyaa yidhi waxaan samaysanayaa maamul baa la yidhi allah kugu yaal waxaan anagu ma maqalo adeer tale aanu gaadhiyahan gunimo goobo markiiba hargeysa ula carar maxaan markaa lahaa xagla toosiyo maalintan xeerka gaagoyey maantaan xabado kula dhice kuu xambaaliyey adigoo xafayfaha guriyo xalal cararaya adigoo xayaydaa guro xelnada hargeysa aad kusii xabsato xalanimo waa adeerka kasaa u cararay ee anigu aanay faki socon mayso tayada unbaa socota waa inaan soo jeediyo mooyi go-aan kale kama dhexsado addoon yahow addoonku ahaa war waxaan anigu soo rogo mooye ma wax kalaa ka dhici karaa ugaaryahan dhulbaanta dhexdiisa allaa binu naclam maanta adiga kuu talinaya waa aniga kaad ku dhex joogto boohoodlahaad sheegaysid waa aniga ayaan fikir ugaaryahan wiilka kibre adduunka waa aniga adeerkaa baa lasoo dhiqdhiqday yidhi waa aniga wax yar hays adeer waxle waxan ma socoto waxaan ugaaryahan ahayn oo wax wadi karaa ma jirto maalintii ka dambeysaan adeer ha aado meeshu doono kaalay isu kaalay addoomayahu addoomuhu ahaaday inta teleexu isugu kin yeedhay baan idhi saas aynu ku kala siiyey taga haddaba addoon binu addoon adeer wiilka kibraa waa aniga waayahay halkaas had dhigaysaa garad aad iyo aad si toosa male maqlaa hortaan ka qaadanaya ii sheeg aad iyo aad waxaad ka qaadanaysaa markay ku dhacdo 9 waay hanadu adiguna saa korka uga gosin adeer daafaha u bixiye muska gala kor laxda uga gosanaya jirtay siida waaye war waa qosle ilaahay baa igu waa qosliniyo dadkan meesha soo fadhiisanaya niyo dadkan horta niyow ummaddan meesha soo fadhida ee qabcada cunaysa walaahi oo bilaahi oo tallaahi horta ma moodin ummaddan inay halka gaadhayso ma moodin laakiin waan ogahay dad cuqdad ka buuxdo oo ma garanayo ummaddan waxaan saa u galay ee caloosha saa ugu buuxiyey ee intaa ciilka intaa leeg ay u qabaan axmed garaad iyo dadka halkaa degan ma garanayo ummaddan noocana dadka noocana waxba sheegan karin walaahi bilaahi tallaahi 15 daqiiqo dhegeysanay wax allaah wax sheegta ma garanayo caawa dhan waxbuu akhriyey wax allaale iyo wax ku hadla ma garanayo waaya ummadda noocaasa haddaba baa dad soo hor fadhiisanaysa oo doonaysa inaad hadasho war ma taariikh baad leedihiin war taariikh aan aniga ahayn oo dhulbaanta leeyahay ma jirtaa waa mid isweydiin mudan su-aal isweydiin mudan weeye waaya taariikhaha aan leeyahay walaahi bilaahi tallaahi maanta oo dhan haddaan halkaa ka akhriyo iyo taariikhaha waxaan uu leeyahay ee madow ee boogtu dhashaya ee meesha soo fadhida horta club house in badan baan idinka hor wareegayay walaahi oo bilaahi oo tallaahi intii club house la joogayba intii kale hay soo qorin waxba aniga iga daayo wicitaanka mid ma dhalaniyo intii club house la joogayba halkaasan ishaan ka daawanayay wax allaale waxay samaynayaan oo dhan ummadda noocana ee qabcada cunaysa ee wada sanqada la meesha soo fadhiisanaysa waxay samaynayaan oo dhan horta halkaasan ka eegayay in badan baan idinka hor wareegayay waana xabaddeeda kor idinka ridayey oo wax allaale waxaa samaysaanba aan kor idinka ridayay laakiin walaahi bilaahi tallaahi maanta wixii laga bilaabo xabaddeedu si toosa idinku soconaysa waana idin qulaaminayaa idinka iyo nacdashii idin keentaba nacdal baa idinka
iyo hooyadiina sanqada la-ayd buu ku yaallay waaya ummadda noocana baad dad soo hor fadhiisanaysa oo doonaysa inaad taariikh warma taariikh baad leedihin ma libin baad leedihin ma libin baa weligii dhulbaanto u keentay maya maxaad tihiin daba addoon dhashay baa tihiin oo dhulbaante addoon ku ah oo boogta dhulbaante ku taalaa nacalaa idinka iyo midgaantiin dhashay ku yaallay idinkoo noocaasa baad doonaysaan inaad heshaan ninka alla hadlasaan daba wa'ayo wiilka alla hadlasaan doonaysaan inaad soo hor fadhiistaan wa'ayo miyaan dad xisla ahayn war wiil axmed garaada oo laandheere dhalay oo baar qabeeya oo dalkiisa iyo deegaankiisa iyo dhulkiisa maanta dhuxu ka shaqeeya buu hodle war ilaa doolo iyo ilaa salkeeda anaa degan oo ku baar qabeeya nacala adiga iyo laangaabta dhashay ku yaalle adoo noocaas oo taariikh nooca ka oo ka arradan oo boogta dhulbaante ku taallaa oo boog dhashay baad cawdhaan ka soo fadhiisanaysaa iyo alla hadlasaa daba wiilka alla hadlasaa wa'ayo war wiilka alla hadlasaa wiilkii lahaa qurumaha isaaq iyo hawiye qoomka gadabuursi ciisaha abaalkii qubay ee qoriga keenaya intaas oo dagaal qaadaysa oo igu qarweysa qalbigaaga yay gelin inay wax iga qaadana warbuu hoodle kama qoofiyo oo quturaya nacala talaad ninka saale waayo ma dhihi kartaa saa adigu waryaa saal libin ma u sheegan kartaa waa maya yaa tahay adugu addoon baa tahay waad foorartaa madaxaad hoos dhigtaa dad aad lugaha u maydhaa nacdal baa adiga midgaanta dhashow ku yaalle in badan baan kala wareegaya aan ka dhacaya oon lahaa war dadkan nabarraa ku yaalla nabaradan ha daqin oo sidan ka daa oo ummaddan sidan ha u gelina ka daa wallaahi bilaahi talaahi laakiin maanta wixii laga bilaabo caadi baan ul baan isku bilaabayaa ul nacdal baa idinka iyo hooyadii makatay ul baan idin dhacayaa kalaab hawsna wallaahi bilaahi talaahi waa idinka saaraya toos baan idinka saaraya midgaan yahay midgaantu dhashay dibna laydinku arki maayo waaya curi qurumaha isaaq iyo hawiye qoomka gadabuursi ciisaha abaalkii qubay ee qoriga keenaya intaas oo dagaal qaadaysa oo igu qarweysaa war qalbigaaga yay gelin inay wax iga qaadana buu hoodle kama qoofiyo ee waanu quturayaa war buu hoodle kama qoofiyo ee waanu quturayaa ninka saale waayo deegaanka saa u laandheeranaya wa'ayo ma adiga no maanta axmed garaash maanta deegaankiisa ma iman karaa maya no yaa saa u gal halkaa yaa geeyey addoon baa tahay deegaankaaga iyo dalkaaga iyo meesha degantahay o dhan addoon baad ka tahay mana hadli kartid mar quriyana juuq ma dhihi kartid wariyey waxaad ku hadasho iyo taarikhdaad ka hadashay midna ma haystid taarikhda iyo libinta aan gaadhay ee dadka ka gaadhay baad ku faantaa habeen iyo maalin la hortaaganta dadka runta haddaan kuu caddeeyo oo aan indhaha kaa gelinyana way ku xanuunaysaa ha ku xanuuntaa tiriye nacdal baa idinka iyo midgaantii dhashada sanqada la-aydba ku yaalla kulligiinba halkaasaan idinka wada gelinaya waaya dadka noocaasa waa daba doonaya inay dad la hadlaan oo soo hor fadhiistaan taariikhaad leedihiin ma libinaad leedihiin dhumaanta libin moo keenteen waa maya anugu maxaan keenay inta libinaan dhumaanta u keenay wallaahi haddaan akhriyay iyo bilaahi iyo talaahi inaanan caawo dhanba kasoo geyoonayn caawo dhanba inaanan kasoo geyoonayn libinaha aan dhumaanta u keenay iyo saan wax idhi waryaa halkaa waxaan kaaga akhriyayaa 12 abwaan 12 abwaan oo 12 kuba axmed gaad yihiin hal abwaan oo caana ma sheegan kartaa waryaa ma caruusad baan markaan corayo walkooda kaasad la soo disaa wallaahi bilaahi talaahi waa qosla kaasad la soo disaa war yaa tahay adugu yaa tahay qofka noocaasa baa tahay yaa doonaysaa inaad la hadasho war qofka aad doonayso inaad la hadasho ma garanaysaa miyaadan xis lahayn qof caadi oo xisla miyaadan ahaynoo fikiraya miyaadan ahayn miyaadan dad caadi ahayn waaya wuxuu ihi silaayo hadduu 10 qori qaran ismada iyo qalbilaa waa horjalo qaamdkeed galay waa niman adduunyada ka qaban xil iyo qaynuun dhaawacaan la qaadan iimeedka qolo beeray durba qire horjalo iyo dirsada igu qasaareen qodada nagdirta wana laabya qoladu wa'ayo waa axmed garaad dadka laga sheekanaya wa'ayo dadkan sidan u laandheeranaya wa'ayo waa aniga adigu taarikh ma leedahay haddaba maya no yaa tahay adugu war midgaan baa tahay midgaan dhalay maxaa lahaa markaana tirsan mayno oonkii tirmiya turshle iyo doori gaaladu waxay tacab lahay taabna galabdaasi maadhiin turaata kadan turta kaga qaadnay laayada qaylada barbaratuhun la weydaari ilaahay baan ku dhaarshay inta nin ee waxaas leh ee inta nin ee gabayga lagu qaato dhulbaanta meyga ku qaato yaa iska leh yaa sheegan kara yaa maanta ku baani kara soo aniga maaha waryaa ninka 12 abwaan oo caan dhalay ah oo geyga Soomaaliyeed laga yaqaano halkaa ka tiranaya caawa ee ku baanaya soo aniga maaha adigu wax taariikh ma leedahay meel ma soo istaagi kartaa baanta labin ma u keentay inaad libin keentay iska daayay adiga waa lagu dhalfeynaya nacdal baa adiga midgaanta ku dhashay ku yaale habeen iyo maalin lagu dhalfeynaya waaya xudugu daroore gaada mar reeb baliya ceel buu xagood marka dhulka gahar ku dheeraday anagoo gahar niyo fadna gumaca heegal ilaahay baan ku dhashay basaan laandheeray eega dadka saan ugu laandheerayo libinaha aan keenay anigu aan gaari bal eega isna qofkan midgaanka ay mar soo fadhiisanaya wuxuu yahay in badan ma ku wareegayay caawan u cadeynaya dhageysta dhageyna ii fura waaya anagoo gahar niyo fadhina gumaca heegaale oo beeshu goos ku taal garafka goos saale oo geel labadina reer golan soo dhaqo Allah ku gaaray markaan gurigaas ku ooday garan waayay ratulka inay godanka daaqana mar saade abaal la gashay garasho ka waayay ana inaan warmaha soo gurtaa halkan waxa ka akhriyaa hadaba inta abwaan anigu leeyahay man ka akhrinaya dhageysta
giddigoodba iyo door markii laysu wada geeyey u gumaadnay gaaliya sidii gocflaa maxaa in bad kusii dhigaaramaya waqti baa u socdaa ku garaacnay goobtii margiyo garigsoodii u goclaya maandhow sidii goodar iyo cawle ugu gabaynay godob rabninka goayba yeelkiisa afartaa gadii ambatay tishoyadhe garbaduubta laantii baxiya geedihii baridhi gadadada milkiga way nin waa yeelle halkaa ka dhegeysta daba gedii maxamed soofe iyo gohay cal adande waa 2 gurxankii ismaaciil miriyo garsho qorwaadhe waa 4 magabada biridh iyo golo sidii siidhe waa 6 geesigii ducaal u ahaa goloskii dheeraadhe waa 7 godka lagu jinay dirina waa garabka reeraha ee gaaftada ku taaliya door garabka loo yeelay geedkiis waa ina baxnaan gobiyo waa yeel 8 guna laguma faaniya tixda guniya baarada nin guraan gursowda siiyo gaariyaata gufaacooyinkii aadan carab godobka sugaanta waa 9 gogooska cumar baay baray goladka faaloodka waa 10 ilaahay baa idinku dhaarsheeyey ninka 10 kaas sheeganaya abwaan hadda weliba qaar aan soo sheegin ba jirta samatar baxnaan iyo cusmaan baxnaan iyo ma sheegin ma tirin ninka ilaahay baan ku dhaashay nooca khaliif iyo khaliif xaaji mudan iyo ma tirin wa ayo ninka libanaha sheeganaya wa ayo war miyaadan qof xisla miyaadan ahayn yaa soo fursan ninka soo fursan wa ayo war ninka libinta dhulmaanta oo ku faano ninka keenay weeye xus baadan lahayn qof caadi ah xisla baadan ahayn oo maal le baadan ahayn waxa waa dhagala yahay reesiyaad oo dhoohan weligi waa dadka dhoohan weeye dadka dhoohan baa maanta aniga ila hadlayo doonaya inay soo hortaagaan xishood wariyaa inta dabada qabsato xishood oo banaanka mar anigana mar dambe afka igu istaagin laakiin maanta waxaa idin bilaabanaya toos ruqaansi toos ah idin bilaabanaya habeen iyo maalin ruqaansi toos ah oo aan kala go' lahayn baa idin bilaabanaya meeshaad bal gashaan idinkaa bal eegaya idinkaa bal sheegaya meelaha aad samaysataan iyo waxyaabaha aad bal idinkaa eegaya saad kala hoos u joogi lahaydeen idinkaa sheegaya adeer waaye wuxuu yidhi waa niman adduunyada ka qaban xaqi dhaawacan la qaadin iyo meydku qola beelay durba qire hor jalay sida igu qasaareen qoladan nahay dirta wan laab yaqaan warqoon maalinta baxaya man lagu qaaday qabka shalay soo miyaan oo in kaga qaaday sool joogto maantaan qabsaday qalab wixii yaallay yaa qabsaday sool joogto yaa limintaas sheeganaya soo aniga maaha adigu maxaad sheeganaysaa adigu inaad limin qabsata iska daaya adigii baa lagu dubeynaya waryaa cadal baa idinka iyo midgaantiin dhashaba ku tiyaal ee 4 xaba ahayd ee madaxa hoos furinaysay waaya libiraha aan gaadhay aniga dadku inta anigu ka tagay in anigu is ammaano baa dadku ammaanayaan dhageysta qaaflayda gabay waayadan ma aan qorin qafil baan ku xiray maasadii laygu qoonsaday aan qiyaaso maanta kulu qiimo leeyahay ninkii wadinada qooqaamar buu qoorta soo dhiganay iyo door khasaaraha ku dhacay qaardaha gaadhay qodidii ka shayleed qaranka axmed garaad qorlugud haddii dhinaca kutoo laysu gacan qaaday oo qariga baaskii u dhacay qarxada baaruuddu qurxii xagooni sidii qarindiloo ilaahay baan ku dhaashay ninka saa u laandheeranaya war libinaha aan sheeganay ma sheegan kartaa war dhulbaahanta libin ba u keentay adigu yaa tahay daba midgaan dhalay baa tahay oo qurjiilaa oo wallaahi bilaahi talaay weliba hadallada hadda wax kala xishoonayaa wallaahi bilaahi talaay indhahan ka gelinaya indhaha waaya qurxii xagooni sidii qarindiloo jidii qiyaas lagu helo meedka yaal wayna qariyaan rag la qabtay iyo saanadu qumeyno waa muush ruuxa ka badan dhaawac iyo door qadan kari waay kaaraha qafilan ee lagoy waxa buroon qiiqa alcadiis weys lagu matal qofka ka yaal silanya qolkiisa oo qomama xigi ilaahay baan ku dhashay now anigu ninka saa u laandheeranayaana adigu ka aad maanta warqadda u qoranayso aad u qoranayso ii sheeg dacwadda u qoranayso aad leedahay hebelow saa samee ilmaa qabatin nuuxtaani oo qoysay maradii anigu ka oysiinayaan ahay adigana muxuu ku samaynayaa khudbad buu kuu jeedinayaa intuu meel ku fadhiisiyo oo kuu khudbadeeyo buu madaxa kaaga garaacaya ul qaara ah madaxa kaaga garaacaya nacdal baa idinka iyo midgaantiina dhashay ee boonta ahayd ee boonta dhulbaata ku taalle ahayd bawse laga waa qabal carre iyo qaran biciisi iyo ilmaa qudhiisi lahayn qowdii dabadeed dadka anigu saa uga oyhinayo ee aan saa ugu lib sheeganayo waryaa adiga 2021 ee adiga madaxa kaa garaacayaan ul madaxa kaa garaacayaan midgaan baa u dhashay lagana qusay buu hoolay iyo qabashadeedii iyo qisaya ablaha lagu dhayay qaadan kari waa qushba mayna siin war jaliyo iyo oo dacarta loo qooshay haddii qaardamaha lagu yidhaa aqoonsan mahayaan qarnimay xasuusnaan darsi lagu qoray buug waaya ninka adoo saa u laandheeranaya dir qolaysataa iyo abtiris qalada sheegtaaba qutidii galbeed iyo ciisaha qiiro gelisaaba uma qalitid reer caligari iyo qoomka reer hagar waayo reer caligari reer hagar waayo mawgaryahan ba u taqaanaa waryaa qof xisla miyaadan ahayn dadkan la sheegayaa waayo waa annaga midgaan dhalay baa tahay oo qurjiila waa dadka noocaasa libinaha noocaasa sheeganaya waa annaga adigu maxaa tahay haddaba adigu maxaa tahay 2021 fakin baa adiga ul madaxa lagaaga garaacayaa oo lagu istaajinayaa oo meelaha qaar aadan geli karayn wallaahi bilaahi talaay weli waa idin naxayaa weli waa idin turayaa midgaan dhashay baa annaga runta idiin sheegana boog baa tiiniyow annaga hadda idiin sheegine waaya aan ku socdo war dadka noocaasa ee taariikhaha noocaa madow leh iyo ninka halka soo fadhiisanaya laandheeruhu dhalay baa doonaya inay soo hor istaagaan waaya war dadka kaleba
waa isdaba qabtaa halkan kaaga bilaaban hadaba halkan kaaga bilaabanaysaa karbaashkii adudu kugu bilaabanaya war dadka kaleba waa isdaba qabtaa daaf markuu hereeya doqonnimo soo reesiya duubka uma qaadan waa niman dardaran oo qalbiga daaqad baa maqan jahligii nugaal daashaday baa loogu dawgalay imisaa wadaad dool ku yimid dabku waaqshaday buu idhi hadba shiikh durbaan soo tumanaya meesha soo dega goortuu dardaro fal iyo sixir ku daaduunshay buu idhi weli soo daahire danab intuu sheegto carshigan dabbaashaa inta daacad ugu sheego dembigana anaa taariikh galay buu idhi war dadka noocaasa eeg war dadka kaleba waa isdaba qabtaa daaf markuu helaya doqonnimo soo reesiyad duubka uma qaadan reesiyad waayo waa adinka wareega aduyaa ka tahay reesiyad ugu laangaabso maa ka tahay maanta laascaanood ka qaxay waaba lagaa qaxiyay adiga laascaanood maanta wani fakan tuwani wan baa lagaa qaxiyey oo u lagaaga saaray ina xabsada kaa saaray midgaan baa tahay adugu markaasuu dilaayo rartaa ilan didi mahayaane xeryaha xayagooriya wixii waa fog lagu duugay dooxada cayaashe iyo tareex amase doofarqod buuri jiidali wixii lagu dadalay baa maanta daahiray ilaahay baa idinku dhashay dadka noocaasa ee aan anagu gubaaminayo anaa gubaaminayo fakin baan gubaaminayo anugu wariya anugu ninka dadka gubaamiyaan ahay doqontii siyaad maxamuud dulli bay qaayimeen dusha loo saaray buu dulkoodii iyo duni waxay lahaayeen baniman baa degay dagaalama anigii lahaabay ila doodayaan dagaaladoodii bay sidii dul amxaaraa dulsaar ku yihiin darwiish taariikhdu lahaabay daguugeen darxumada ay qabaan duni dhammaanteed laga sheeg war in badan baan ka warwareegayey oo kala hoos dhinacay ka daaqayay oo aan ishaadin ka fiirsanayay oo aad ileen doqon baa tiina doqon yahay ka kaca meeshana dacayda laaladin ilaahay baa isku dhashay dadka noocaasa ee doqonta baa dad la hadlaya doonaya in dad wax u sheegtaan war miyaadan xishoonayn war fororsada oo weer cad qaata oo mudaharaada waryaa aniga hala hadline wiilka alla hadsan waaye waryaa wiilka 12 dhashiike iyo suug soo furtay weeye waryaa ee adiga kuwa maanta madaxa kaa garaacaya isagoo ka furtay ee ku laandheereeyey weeye nacdal baa idinka midgaanta dhashay ku yaale yaa la hadlaysa wiilka alla hadsan waayo miyaan dad xisla miyadan ahayn miyadan fikirayn waryaa saad aniga ii soo fadhiistaan aniga wejiga usoo fadhiistaan xayd keensan cuqdad baa idin dishay kalaam cuqdad baa idinku haysa sanqada ka hoosan nacdal baa idinka iyo midgaantiin dhashay ku yaale waad ka baxaysaan kalaam toos baad uga baxaysaan niman yahu dalkeennii halow waanad hurdaanay hoga ceebtu waa idin hulaab iyo hagoogtii teeriya xagaagii hayaad ku hulaabnida anunbaa hayaydaa guryaha hormar dhexdaan anunbaa hayaydaa guryaha hormar dhexdaan hanti maqan ninkii laga hayaa waa hibayn jiray ama holgal iyo weerar buu ku hindisoodaay midna kuma hagaagtaane waad heellan burantaan ama hura naftani way hadhaa oo hayse lagu waah ama haniya dhaha cadal baa idinka iyo midgaantiin dhashay ku yaalle war waxaan maxay ahaayeen niyo war waxaan maysan dad xisla ahayn maysan dad fikri ahayn war waxaan maxay ahaayeen maysan dad war maysan dhulbaanta ahayn dadka maysan dhulbaanta ahayn niyo war miyadan fikrayn dad caadi miyadan ahayn miyadan xis lahayn war saatiin see alla idinka dhigay anugu taariikhaan noocan markaan samaynayo miya adiga wax iga barataan saada wax uleynay maad wax iga barataan waryaa xabadda saan u ridayo iyo saan u laandheereynayo iyo saan ummadda u halaagayo maad iga barataan waryaa maad i daba gashaan iga dulfeeshaan midgaan baa tiinay maxaad taariikhad leedihi idinku maxaa taariikh iminka dad reer megay la qaadato walaahi bilaahi talaahi baan gabay ugaa tiriyey oo ugaadhiyahan tiriyey siyaad maxamuud iska daayay maxamuud garadoo dhan walaahi gabaygu tala soo qaadan karayn saa gabigooda maba gabiyaan be buraanbur bay yaqaanaan buraanbur waaye anugu libinaha aan gaadhay haddaba aan u keenay dhubahantay baan hadda ku akhriyay haddaba adigu walaahi bilaahi talaahi miskiin baa tahay miskiin wax lagaaga socda aanu garan maayo miskiin baa tahay dirirtii libaax qowdhama iyo dirirtii buu hodlay haddii aan dagaaladii ka dhacay dib uga faalloo daran doortii mugada tana uga sii daran dunta habar jalay ciidagale dacadtigii gaadhay dhagax dababadaha maray dooxa kala jiray waa iyo dadka noocan sameeyey waa iyo mi aniga ahayn halkaa ii dhig hanado gale hal daqiiqo waray siciidow wuxuu ka soo qaaday 49 buu ka soo qaaday 4 buu dhigaya markaa 4 buu dhigaya aad ugu adiya waa dhanta birjaaxow may maqlaysaa gale waa ku maqlaa sameecadaha iska hagaajiniyo codka si fasaxa looma maqle waxaad ka qaadaysaa 5 baa ka qaadaysaa ku dhac warqolka follow taabtan iyo kafta xalaala ka socda siida birshaahu gala niyow kabay aniga horta waxaan moodayay inuu wax ka hadlayo
ninkaas weyn ee soo fadhiistay waa ninkaale jaamaca kadiyuken jaamaca kadiyu ciddu yahay bal horta orod soo baro marka hore adduunka waxaan leeyahay adduunka qarniyaad ka dambaysaa dhowr qarniyaad ka dambaysaa waxaan leeyahay taasaa ka mid godka madare boodiga godka madare iyo godka madare boodiga banaan hadday gacsha kaa meerto ama aad hal golgoola nimanka waayo alla ku yaale anigu maxamuud idinku waxaad ku raacdeen axmed garaad waxaasaa isku raacdaa anagu waxaa xataa uma dagaal tagno wiilka caynaalaya intuu ka dego bacabde la taga quryaa dagaal taga alla ku yaaloo laga soo cabtaa wiilka intuu nuur axmed ka dego oo cali nuur ka dego oo faarax cali ka dego muuse faarax tago wuu dagaal tagaa heer lasoo dagaalama alla wiilka cad maxamuud intuu doono ka dego buu dagaal tagaa nacalad baa ku dhashee bal adigu waxaad isi saarayso anuu heerkan doonaan soo duqeeya maanta wiilka baan ahay suu doona u doobiye maxaad ii sheegtay bal hadda waxaad tiri anigu waxaan ku yidhi su-aalaan ku hordhigay waxaad keentaa adeerkaa oo sida aniga adeerkay uu leeyahay bal in adeerkaasoo muu gabi jirin adeerkay oo sidaa u baanayoole waxaan ahay ugaaryahanka la diga labada dabadba adeerkaa ma laga soo heli karaa addoonku adeerdaad gabaydid haddaad nin gabyeg tahay ma laga soo heli karaa adeerka ayuu saa u faani karaa oo leh sidayda aan kugu faanayo waxaa la yidhi hortiisa duryeelaatu kale ku dara war adeerkay waa isagaa marka hore isku sii doobiyey marka dambe ciddu doono la hadlayaa laakiin lagaa soo heli karaa wixii guddigan u gaaryaha markuu gecishka wada fulay maantu dogobla galay ee gaadka kaciyaaday ninba gacanka waatuu ka jaray gabaladeedii aday gorofta kugu sii hadhee gaban meesheeda caynama ninkii gacan ka dhigay soogal noqon waa ogtahay meeshaad degnayd iyo meeshaan degnaa addoonku ahaada war waxaan ku iri wax ma sheegan kartaa caldhuux teebel maxaad sheegtay adduunka ninka gabay heer kale lagu ataago ninka bidda faarax gaasbaale waa wiil ugaariyahana oo maxamed ugaari oo sokaa ugaariyahana oo naaliye axmed oo heer cilmiya addoonku ahaa adigana isi saar waa gabayada maanta ugu badan ee heer lagu ataago adeeradaa maxay tiriyeen waa inay heere iska soo ataabaan waa inay meel ruuxaasi gabay maaha addoonku ahaaday sida adeerkay u baanay ee u kibray ma u kibri karaa adeeradaa may ma sheegan karaa nin dhulle nacalad baa ku tal muxuu sheegtaa haddii adduun buhoodlu ka leeyahay war ma sheegan kartaa qof taariikh leh adduunku waxay ka dhashay ina daflo oo kasoo kibray oo maanta soomaali meeshii kasta la arko ka doobiya addoonku dhalay waxaa iga dhashay wiilka maanta leh caruurtu naasaha hooyadooda ku ciyaartaa laakiin qoraha aabahood kuma ciyaarto addoonku dhalay kii kaa la mid ahaa ee today adiga madaxweyne ku-xigeenka ahaa safiir buu noqon haye war waxaad kasoo jawaabtay male dhegeyso habaryoonis waxay cararaysa hiida kicinaysa waxay hadalka booboobaysaa waa hawaar xumay nimankay kasii heganta naalayaha heegane ee hawsha ugu qabtay soo hal noqon mayso sida warabka loo haydhiyey kaga xaqsiyaane hayaydaa waa kuwa wada gure hadda guranay anugu waxaan ahay adduunka ballimintaasoo kale ma soo xereyn kartaa addoonku dhalay intaan kibir dhaafay oo kibray oo qooqay baan fuulay war heerka markii heer laga tago ciido baan fuulay intaasaa u foorariyey addoon taama adigu ma dhigi kartaa maya waa intaan qabtay baan dab ku guray qaarkiya markuu in daldalay ee duubka ini jeexima intuu ini daldalay dab ini yeelay dogobliyo markuu inu ku jaray meel dalkiinaaha adigoo ininku u yusyusayaad duum tiraadaha naaraha dadkii laga dhigi dacalma weydaane doqonya ahay maruun baan hadeed habaryoonis doodaan la dhacay dacaladeedii dhe anigoo kasii daalmariyo dawa jabarkeeda marka nafaha loo daydiyey kala dawaraaneen adiguna dab baad leedahay calaamadaha lagu sii darkay doobna u noqotay addoonku dhalay anigu taa ugu dhigay malihi marna la arki maayo iyadoo laleeyo gaariyaan waa naali axmed baa la dhahay hay war wiilka nuur axmed yuu ku doobiyaa dadba dhulkoodii ka qaaday aduu dhul ma soo qaatay addoonku ahaaday uu ku doobiyaa wiilka cabdi maxamuud maanta xadeed buu taagan yahay uu leeyahay maantaan xadeed soo furtee xoolaha u daashay maantaan sida xayn la galay kala xaraabeeye ninba xawlistaysiyaan martaday kaama xarateene nacasi oo ka xaba maanta xaggaan sii taaganahay anugu addoon dhalay war maanta ceel buh baan dul saaranahay oo rabaa inaan u taliyo
adiguna buuhoodladaadii baad weli taagan tahay addoon yahow marka maadaa taariikh soo hooyey meeshaadi baad leedahay waa in la ma nin baa dhaha gurigaygii baa lagu soo nin baa gurigiisa lagu soo boobay waa ilaakin nin kasta gurigiisa waa lagu soo boobay addoon bilo addoon laakiin wax ma kordhis waxaan maanta waad aragtaa wuxuu yidhi caanaalayahan tirsan ee ini casaynaya kuwa calaha ini gooyay acabka ini jaraya markay caalad noqotaba kuwa ina caweeraya idinkuba caqlaa leedihiin carara oo yaac war nimankasaa laga leeyahay waa cali naaliye marna arki maysid axmed garaado la dhahayo ama iyadoo u gaariyahan la dhahay bal meesha axmed garaad ku taagan tahay addoon yaho addoonku dhalay anigu inaan kifray oo aan qoomiyad is aqoonahay addoon dhalay baa tahay qoomiyad is aqoon inaanan ahay waxa kuu cadaynaysa adduunka anaa ku kifra addoon yaho addoonku dhalay waxa kuu cadaynaysa anaa kifra anaa saan doona yeela bal heer weeye waa nin intuu doona ka tegey ma adsa uma adsan wiil intuu naaliye axmed ka tego cali naaliye ka tegey buu wuxuu taagan yahay bacadale ama wuxuu taagan yahay biidare baa kibra wiilka nuur axmed intuu doono intuu ka degu tigraa wiilka cabdi maxamed intuu doono ka kibraa wiilka maxamed maxamed intuu doono intuu ka degu kibraa wiilka xasan maxamed intuu doono kibraa wiilka wacays cabdulle intuu doono intuu ka kibro buu dadka soo laaya war anigu adduunka waxaan sameeyey in aan dhaho heer dhab baan adduunka ka saaraya addoonka waxaan sameeyey inaan dhaho dad dhan baan gubaya ma samayn kartaa watuu uurbayta lahaa addoomaha ka daa saad u geli awra nuuraha uu jooga waa nuur adigu caqligan soo leebaad ka aroorsiitaane war ayayda maantay guraan soo almaamno shickoodha kuwa aasayda dunida aab yaalla addoomihii la kala gooyeyba weli afaaraya anigu waxaan sameeyey ma samayn kartid addoon yahow addoonku dhaa ma isku taariikh baynu nahay intaan doono waan kaa badanahay intaan doonana waan kibraa intaan doono waan adduunka buuhoodlaad ka degtaa waadna wada ilaasha buuhoodlaad heerhawdoo dhan ku kooban yahay waa buuhoodla keligeed addoon yahow war waxa inaan kugula qaato ugaadhyahan ma ahayn maxamuud ugaadhyahan aan kugula qaato ma ahayn maxamuud markaan kuu fadhiisto oo maanta kuu tiriyo dowladii soomaaliya ama meelka maanta soomaali joogto inta taariikhda aniga iga soo maray adiga kaama soo marin faarax garaadka dhanaasi axmed garaadka dhanaa sheegasid addoon yahow addoonku dhalay waxaa la niman yaho halii waa la war horta yaa la haysta aniga wataa magaaladeydii anaa saan doono ka yeela am fakin meesha maanta aad addoon yahow ay etoobiya ka taliso ee calanka puntland ka taagan yahay waad ogeyd doraad in adeerkaa marka la yiri oo hubkaagii keento waxa lagu soo bahaleynaya adduunka waxaad ka tihiin waa taqaanaa addoon yahow labadiina wasiiraha warfaafintaad adduunka ka haysataa waa maamul goboleedo yaryar baad laba wasiir ba adeerkaa markuu lahaa haddii aad laba wasiir soo heshay war anigu goormaan kibrey addoon yahow addoonku dhalay kii kuusoo talinayana anigu ahaa suma og kii soo qooqayso in anigu ma war ina daflaa kugu soo qooqay qaarijiyaa kugu soo qooqay addoon yahow addoonku dhalay maantana hawd ina falaalug baa ku qooqo soo doona ugu daabiya addoomo dhalay baad idinku ka tihiin mana hadli kartaan maalintaan rabana anaa taan doonaya ka yaala anigu intaan doono intaan heer ka digo baan jilibka yar ugu hooseeya u gaariyaan buu heerku doono kasoo xaasa wuxuu yidhi maantay nafluhu ka cararaye ciidu gololaysay maantay hal calalaysla iyo nobel loo cararay maanti ninkii cabsi lahaa kaaga calayeeyey muuse farax maantuu calladay calanka weeyaane caqligiiba inay gelinayaan soo carari maaha adyoonahaas ku dhalay adigu saama u sheegan kartaa war heer baan anigu degaa saan kibraa adu laakiin saa uma kibir kartid addoon yar baa tahay heer hebel baan iska celiyay adduunka yaa iska celisay anigu adduunka dal baan meelaan ku faasaa qoomiyad aan isuqoon baan ninka maanta shaxda ilaa jiidali degani isma yaqaano ilaa xareed ilaa alaascaano degan isma yaqaani waxaan ku yiri wiil kale imuma dhex taraxo anaa saa u kibra maalintaan doonana ku kaaja ninka maanta hadduu magaaladiisa dhexdiisa saa uga dhaqaaqo u leeyahay jooji oga etoobiyaanku leeyahay jooji ee lagu maamulayo soo adiga maaha kiine adduunka maanta lagu maamulayaa addoon yahow addoonku dhalay in adiga lagu maamulayo iyo in adiga la maamulayo so in adiga lagu maamulayo ma cadda wuxuu yidhi axmed garaado cararkii markaad ololofeynaysay ama xarada markii aad gashee inka dhiganaysay awoodlaawo yaho maad adduun kala aglaysa adeerka horta caqlina inaad carartaan oo anaa idinku kalifay aad xaggaa gashaan adduunka oon iyo saxare aan lama degaan caadi aad gashaan wiilka idinku kalifay in fakin u gaaryahan waa qoor qoodhalay u gaaryahan
Sula adeerka hadduu bari yaraha roobka barigaa kasoo doo haddii bari yaraha roobka barigaa kasoo doo oo birmadii madoobeed barigaa uga gudubtaa birmadii madoobe waxaa u taqaanin addoomaad tihiin lacag lama lihiin laamigaad birmad madow u taqaaniin haddii bari yaraha roobka oo barigaa kasoo doo birmadii madoobeed barigaa uga gudubtaan heerahaad u gelaysaan birta way yaqaanin yaad u gelaysaan marka waa wiilasha asaad u gelaysaan u gaariyaan heerahaad u gelaysaan birmada way yaqaanin yay boodadayni kala goyn baxrigayni ka wada dhigin yaan ba ayay wada guri adeerkaabaa taa lahaa addoon yahow addoonku dhalay war anigu taan anigu kuu geystay baan ku yiri heer hebel baadsan yiri heer hebel baadsan yirina addoon yahow cid ay wax gaarsiiyeen dadka kale adaa jira anigu wiilka kibraa ee maantana sanaagna ka kibraya soola ka kibraya meeshuu doonana ka kibraya nugaal xataa ka kibraya waa aniga ayaa mugaariyaha allaa adiye waxaa tahay ku yaala maanta oo dhan waxaad saarnayd maxamuud faarax maxamuud garaad horta taa kugu teegsan maayo dee in caruur baa leh in sabarad kale loo isticmaalaa waa edab daro inaan taa intaa lee ku isticmaalaa waa edab daro horta ugaariyahanka xitaa kugu khalada in addoon yahow addoonku dhalay adiga lagugula kabtamo khalad waxa ah in ugaariyahanka lagula kabtamo waa in ama maxamuud lagugula kabtama naaliye axmed ama nuur axmed ama cabdi maxamuud ama maxamed maxamuud ama xasan maxamuud ama wacays cabdulle waxaa in lagugula kabtamo weeye in adiga ugaariyahan lagula kabtamaa horta maba aha wuxuu yidhi maantay caliyey ololeyse ficilka diidaysay maantay nafloo kala cashe warbal maanta adduunka dhulbahantee taariikh dhulku xusan anigaa leh maanta haddii la tago adduunka waa jiidali waa taleex waa jidbaale intaba anaa dega wiilka maanta taleex ka doobiyaaye taariikhda dhulbahantee ku xusan tahay waa aniga maanta daraawiish meeday aan meeshay ku tahadhay waa aniga xaruntii lagu dagaalamay waa aniga meeshay kasoo arsantay waa aniga addoon yahow addoonku dhalay adeer dhul taariikh maanta la sheegi karo waa taleex jidbaale jiidali intaba anaa degan cakaara war maa degi kartaa adoo dhulkaa war jira aba cakaaru iman addoon yahow addoonku dhalay wuxuu yidhi rasaasaha dhacaya rablaha riga yeedhaya waxay rabadu ay maalmayse la argleynayo ninba rowga maantuu jaray kala raqleeyaane ayaydaa rag baa gurayo rufa cararaya niman baa rasaas lala dhaco raga diidaye adbaray baad leedahe kama rasaasteen niman yahow rafaad baad nabaday nimanka reerkiina habar yoonis way wada dadaa maalin iyo leylo rasaas baa dhumaha lagaga waday kama raraastaane adeeroo runbay noqonaysaa ragga naga daaya addoon bino addoon dhalay baa tahay anigu ninka saa dad u weynaya cidda saa u xasuuqaya ee maanta lale ninka lale majeertan xuduud baan ahay addoon yahow ee lale xuduud warsangeli ee lale isaaq jibil kastuu yahay lale adigu laakiin waxaad la leedahay hal heer halka heerna waad ogtaa addoon yahow war ma anaa soo babac dhigi kartaa inaan qoomiyad ah waxaan ku cadaynaysaa jilib kastoo maanta majeerteena waxaan la leeyahay xuduud jilib kastoo warsangeliyana waxaan la leeyahay xuduud jilib kastoo isaaqana waxaan la leeyahay xuduud intaa ma samayn kartaa addoon yahow addoonku dhalay adigu intaas xataa kuma dhacdo adduunka xidaad xuduud la leeyahay war maanta ilaha adduunka maanta dhulbahanta meesha uu ku tashanayaa dhulka anaa degan magaalo kastoo maanta dhulbahanti oo taariikh iyo xushmad loo hayaan anaa degan waxaan deganahay taleex waxaan deganahay holhol waxaan deganahay jidbaale waxaan deganahay bal adigu waxaan deganahay cakaara bal waa dhulkii taariikhda lagu soo xusay ee maanta gabay kasta ku jirta ee ilaa daraawiishti ma degnid adoo addoon yahow addoonku dhalay adduunna buuhooda wuxuu yidhi adaykaa rasaasowday oo lagugu reemayey adigay hubkii kaa dhigeen falad maad moodeyne haweenyahow raabkaagii baad roqod ku noqotay maruun kama hadleen niman hayey daagurtaad kama haweysteene addoon yahow addoonku dhalay wiilka aad maalin kasta baryaysid ee aad leedahay adeero ii caawi walaalo ii caawi waa wiilu gaariyahana addoon dhalay baa tahay war wiilka maanta ka doobiyaya adduunka sow aniga maaha meel kasta oo maanta dhulbahanta taagan yahay wiilka taagan ee ka doobiya sow aniga maaha waxbaan su-aalaan ku weydiiyey oo ku hordhigay midna kamaa jawaabin taariikh hadday noqoto niilka dhulbahanta usoo dhigay waa aniga wiilka maanta dadka baday oo nafta baday ee baday inay 18 May u dabaaldegaan ay calan taagtaan waa aniga fakin ku ahaaday waa ina dadle waa qaarajiye
addoon yahow addoonku dhow waa Siciid Shoodhe waa Faysal Balaalug waa ina Cali Shire aad iyo aad Allah halkaa kugu dhig in cala shiraaku aad iyo aad iyo aad si toosa xaga bilaaba kow waad ka qaadaysaa marka ku dhacdo aad iyo aad waaye horta qofkan waad arkayseen meesha soo fadhiistay wuxuu ka hadlayey war taariikh reerkiina u sheegaan kuliniyo waxaad leedahay sheego waxaad leedahay ka hadal taariikh ka hadal in qofku iska qayliyo qofka biniaadanka inuu iska qayliyo oo iska buuqo oo wuxuu doono iska sheega ma ficna moogta war taariikhaad leedahay ka hadal reerkiina wuxuu taariikh leeyahay ka hadal adigu maxaad geysatay maxaad tahay maanta 2021 maxaad tahay taariikhda hore maxaad ka ahayd taariikhda yaa leh maanta marka yaa reerka ugu taariikhda doon waa ayo adigu maxaad ka tahay adigu xaggaad joogtaa dalkaagii meeyi maanta dal baan deganahay meeyi dalkaad deganayd meeyi wari maxaad ka hadlaysaa aniyo miyaadan qof xisle oo maalla miyaadan ahayn qof caadiya miyaadan ahayn maxaad ila soo horfurtaysaa aniga war taariikh ka hadal baan ku udhi war wax sheegaan ku udhi war wax samee buu hoolde caawdhe waxaan ku warayay buu hoolde etoobiyaan ma jooga war etoobiyaan buu hoolde waxaan kaga sameeyey taariikhaan kaga dhigay iyo taariikhaha madow aan kaga sameeyey waxaan kaga sameeyey waa la ogyahay iyo taariikhaha anigu ku sameeyey etoobiyaan iyaga iyo hooyadoodba saan u galay 2010 waxaan ku sameeyey waa la ogyahay wariya etoobiya waayo dowlad weyn oo qod weyn waayo maxaan ku sameeyey wari anigu etoobiyaan ninkii wariyay baan ahaa buu hoodle dhexdeeda ninkii 21 nin kaga dilay halkaa wariyay iyaga iyo hooyadoodba u sayay baan ahaa mayaga buu hoodle soo geli kara mayaga buu hoodle wax ka samayn kara taariikhaha noocaasa inaad ka hasooto ma fiicna iyo waxyaabaha buu hoodlay inaad soo hadal qaado saayo oo qof caadiya tahay si caadiya u hadal wax caadiya ka hadal taariikh awgaa kaga tagay sheego wax sheegaan ku guri caawa dhan wada wareegaysay intaas ku wareegaysay yaa tahay aduu hadda wariya haddaan ku xidhayaa weer cas haddaba haddaan weer cas kuu xidhayaa weerkaaga casaabaan kuu xidhayaa boogtaan taabanayaa waad damqanaysaan kulligiinba nacdal baa idinka iyo hooyadiin iyo dhaladiin dhashay ee fluorescentkiisaba ku yaallay waaya dadka noocana ee taariikhaha aan lahayn ee 2021 allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha illa allah haya waa aniga doonaya ina hadlaan wiilka alla hadlaysaa waayo wariya meeshan kala joognaysa ma garanaysaa heerkaan kala marano inagu ma garanaysaa wariya heerkaan anigu taaganahay iyo heerka aad taagan tahay adigu ma isla garananaa horta qof isla garanayo xis lama tahay xis ma lihide haddaad xis leedahay maad dhaqaaqdeen dhulkaagi maalin cad kamaad dhaqaaqdeen oo hoos maad fororsateen wariye haddaad xis leedahay baan ku taariikhaha anigu aan leeyahay iyo anigu waxyaabaha aan sameeyey iyo saan dadka ugu liman sheeganayo adigu ma ugu liman sheeganaysaa waa maya no waaya qofka noocaasa adoo ah haddaba oo aan taariikh lahayn oo maanta 2021 adiga aad weer cas ku xidhan yahay oo ashhadu an laa ilaaha illa allah hayso oo aadan calanka soomaaliya si xorriyada aadan ugu dhex mari karin magaaladaada waa aniga ila hadlaysaa ninka la hadlaysaa waa ayoriye heerkaan kala marnaa kuu sheegayaa 2021 anigu dadka halkaa iyo door madaxa badda kaga dhuftaanahay adigana waad u naagaysaa nacdal baa adiga iyo hooyadaba keentay waad u naagaysaa wariga kabahaad u dhaqdaa qofka noocaasa adoo ah baad in badan soo celinaysaa buu hoodle maxaa kaas jira meedada buu hoodle joogta buu hoodle niman laandheera layo xiliyahooda ku jooga walaahi bilaahi talaahi ummadda soomaaliyeed waa garanaysaa adiguna waad garanaysaa indhaha aad iska turaysaa indhaha waxyaabaha qaar baan indhaha laga qabsan karin moogta war waxyaabaha qaar baan xitaa lagu sheekayn karin war qof caadiya miyaadan ahayn war miyaadan si caadi u kabtan karayn maxaa ku dhacay miyaadan taariikh lahayn wax sheegaan kugu idhi maxaad sheeganaysaa nimankaa dalkoodii u horeeyey doora weynaha nimankaa duliga qaayibiyey ee dunida keligood nimankaa duliga qaayibay dunida keligood nimankaa martidoodii la raray maalin iyo habeen nimankaa doogay taariikhdii qotada dheer nimankaa duliga loo arkiyo dusha saartay duligaa la arko dusha saartay nimanka noocaasa baa doonaya inay la hadlaan aniga waryaa wuxuu idhi hanti maqan ninkii laga hayaa waa hibeen jiray ama howlgal iyo weerar buu u hindisoodaa midna kuma hagaagtaana waad hella murantaan eeg bal gabaygu meeshuu maraya eeg
hanti maqan ninkii laga hayaa waa hibayn jira hantida maqan waa ayo waa la garanayaa waa taad maanta allahu akbar ka dhaxayso ama howlgal iyo weerar buu u hindisoodaayay midna kuma hagaagtaana waad hela murantaan faan baad halkaas u fadhiisantaa faan waa lagu yaqaanaa moogta dadka baryaha waaweyn inay faanaan waa lagu yaqaanaa faan baad caawa dhan far war hayay faanin aniga hayay faanin ninkaad u faanaysaa ee aad iska celinaysaa waa ninka maanta aad allahu akbar taakaas aniga maaha no waree qof caadiya iska dhigo xis leh maankaaga xis u yeel waaya waad hela murtana ama hura naftani way hadhaa oo hayse lagu waaye ama haniya dhaha sool rag baad uga hololeesheene cadal baa idinka iyo midgaantii dhashay ee hoos foorsan jirtay ee isdaawan jirtay ee aan arkayn meesha laga xigo iyo meesha loo soo jeedo waa doqon yahay ka kaca meeshana dacayda laladin dadka noocana baa doonaya aniga la hadlan wariga taariikh sheegtaan war miyadan qof xis lamiyaadan ahayn qof maal lamiyaadan ahayn adigoo allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah leh oo gacmaha kor taagaya baa doonaysaa inaad ariga hasho wariga miyadan qof xis la ahayn oo maal lamiyaadan ahayn war maxaa kugu dhacay war dad kale waa isdaba qabtaa daaf markuu helaya doqonnimo sow reesiyaad iyo ugaadhiyahan iyo nacdasha halka soo fadhida ee sanqada la sow duubka uma qaadan war dadka doqonnimada duubka u qaatay waa ayo war waa idinka war dadka nooca loo gelaya waa ayo war waa idinka war anuu taariikhaha aan leeyahay iyo taariikhahan samey haddaan kuu bilaabo walaahi bilaahi talaahi maanta oo dhan aysan dhammaanayn war dal baan deganaya baa tiri madaa dal degan dalkaagii meeye dal degan dalkaagii meeye war taleex ka sheeg taleex 2021 maanta isku soo wariya ninka idoor Soomaaliya wariya aniga maxay ka sheeganaysaa ninka la hadalsaa waa ayo ninku yaqaanaa aniga wariya dadka aan ku aqoon u sheekay qof aan ku aqoon u sheekay quruud baa tahay badan baan ka wareegay oo aniga igu soo ordiseen laakiin maanta waan biranayaa saasana waligay idin biranaya waligay walaahi bilaahi talaahi kala businta joogo inaan maalin idinka qalanay maalin waaya dadka noocaas aan taariikhaha lahayn baa doonaya dad isday soo ristaagaan niman taariikh leh oo iyagu dadka xabadda wajiga kala dhaca oo dadka wax u qora inay soo ristaagaan war dal baan deganahay war doollo iyo buuhoodle yaa degan ilaa buuhoodle laga bilaabo horfadhi ilaa iyo doollo yaa degan anaa degan wariyaa ku laandheeraya oo intaaba dadka xabadda kala dhaca adigu maxaa tahay wariyaa dhul baa lagaa kan maanta 2021 dhulkiisa adiga lagu xukumayo adiga maa wariyaa cadal baa adiga iyo midgaanta dhulsha ku yaalla dadka noocaasa baa doonaya inay hadlaan anugu haddaba taariikhaan sheegtay baan kuu sheegaya dadka saan ugu laandheereeyay baan kuu sheegaya waxyaabaha aan geystay baan kuu sheegaya bal aduu taariikha aad samaysay sheeg no ma haysatid waxaad allaaliyo waxaad samaysay ma haysatid gabay baa bidda faarax kaas bula soo waday war bidda miyaadan qof xisla miyaadan ahayn war dadka aan kuu sheegtay miyaadan garanayn war yaan kala hadlay war cali dhuux ismatar xanan war ismaaciil mire war waxaan kala hadlay aadan carab war miyaadan qof xisla ahayn inta hooseba kuma geliye inta cumar cigaal war dadkaan kala hadlay miyaadan garanayn aniga maxaad bidda igula soo risaa bidda faarax kaas bay igu soo risaa one person qof waxaad maqli jiray qofkaas waa gurmagoon oo keligii buu cararayaa qof keligii cararaya aniga hala soonin war ninka 12 abaan maanta halka kaga tiriso aniga maaha taariikhaha noocaas kuu sheegtay ma sheegan kartaa taariikhaha noocaas adigu maya waraasilaha wataan u xidhay labiga weynaayo wataan kofisalo iyo geel walaala ninka haddaba taariikhda ninka sameynaya waa ayo war axmed garaad maaha war cali gari maaha war waa reeg gorod waa cali dhuux ninkaad maanta ku qorowda gabigiisa meel walba doortisa weeye cid walba ka hortegayso aduu gabay nin saasa noocaasa ma leedahay war nin cali dhuux dhugma ma leedahay nin samata baxaan dhugma ma leedahay aan carab mid dhugma ma leedahay samata ma leedahay ismaaciil mire ma leedahay taariikhaha noocaasa ma leedahay maya ma lihid maxaad leedahay adigu maxaad leedahay taariikhaha labaad leedahay waayo waa inaad hoos foorsato waa inaad dad daba dhaqdo intaas taariikhdaadu intaasay kusoo ururtay ilaahi bilaahi talaahi taariikhdaadu intaas bay kusoo ururtay oo taariikh kale ma haysid no adoo noocaasa oo taariikh nooca ka oo saa u aradan oo qofka noocaasa oo dad noocaad ka tahay iyo meesha aad degan tahay oo dhan la garanayo baa hadlaysaa maxaad ku hadlaysaa haddaba yaad la hadlaysaana ee qofku markuu qofka eeg qof dhigaaya baa lala hadlaa wariyaa qof sidaada adigoo kale dhagax tuuraya baa lala hadlaa anuma dhagaxan tuuraya maya anaa laandheeranaya anaa dadka ku laandheeranaya oo dadka madaxa xabadda kala dhacaya qof xisla oo maal la miyaadan ahayn anugu dadka anaa ku laandheerayaan ku idhi 110 jeer baan ku sheegay haddana waan kugu celinayaa war xis iyo maan yeelo may adigoo taariikhaha noocaa ka oo saa u madow baad doonaysaa inaad soo hortaagto wiil laandheere dhalay oo dhulkiisa intuu halkaa qabsaday oo ku laandheereeyey oo dadka noocoo doonaba ka yeelay adigu ugaadhiyahan baa tahay maanta maxaad lascaanood ka tahay wariyaa wiil yar oo in adeerkaaya baa kaa raafay lascaanood oo kuli raaf baa soo baxay si toosa aad iyo aad
war ninka halka saaran waayo janaal qayba waayo waa ninka ugu taariikhda weyn dhulbaanta ninka ugu taariikhda weyn waayo waa ree wacay saadan laangaab dhalay baa tahay ma sheegan kartaa taariikh noocaas ma sheegan kartaa maya waayo janaal qayba ree wacay saadan adigoo dad nooca ka oo taariikhda horena aan ognahay saad ka ahayd taariikhdana aan ognahay saad ka tahay oo ummaddu wad og tahay oo allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa weer cas aad dhagax tuurayso falastiin dhalada tahay baad doonaysa dar soo risaagto war miyadan qof xisl oo maal miyadan ahayn in badan baad ka warwareegay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi kalaa inta la joogay horta dadkani waxaan ii sheegay maanta inay cuqdad inay qabaan baan ii sheegay cuqdad wallaahi oo bilaahi oo tallaahi cuqdad caadi ay qabaan cuqdad toosay qaadeen war kalaab hoos waa la joogay waa lagu kaftami jiray nin walba waxbuu iskaga kaftami jiray waa kaftan afka baarkiisa bay ahayd cuqdada caloosha waa dhacday caloosha wada buran iminka iska soo neefiya kulligiin wada hadla anaa idin siinaya neef qaata cuqdad badan haysa waan idin fahansanaya anigu waxaad u socotaan oo dhan dadka wallaahi bilaahi tallaahi cuqdadii oodada wey waa cuqdadii oodada wax allaale iyo waxay samaynayaan garan maayaan cuqdad bay la fadhiyaan meeshan kalaabos cuqdad bay la joogaan waa la garanaya kalaaboska dadka dhibaatada ugu badan kalaaboska ayaa cuqdada la fadhiya waa iyaga cadal baa idinka iyo midgaanta idin keentama ku yaalle anaa haddaba kalaabos idinka gobiya oo idinka saaraya kalaabos dibna cid ugu soo fadhiisan kari maysaan waryaa idinkoo noocaas taariikhaha nooca ka oo saa boogta dhulbaanta ku taallaa inaad hashaan oo aad nin dhulbaanta oo axmed garaada oo laandheera laya adoo ugaadhiyahana soo horsaagto ilaahi bilaahi talaahi kaa filin laakiin dhacdayba anaa maanta iscanaanaya anaa canaan isku wada maanta sayaa isla hadlaya labada ninkan la hadlay waayo anugu sayaan ahay anugu taariikhaha aan sameeyey isagu maka soo gaadhaya maya isagu taarikh ma sameeyey maya anugu taariikhaha aan ku laandheeriyey adduunka aan saa ugu sameeyey adduunka o dhan laga yaqaano isagu ma sameeyey maya isagu waayo inuu taarikh sameeyey iska daaya isagii baa lagu laandheerinaya oo korka laga kaajaya alaa idinka iyo midgaantii dhashaba ku yaalla miyayn dad caadiya ahayn dad caadiya miyadan ahayn waaya ummadda noocaasa baa haddaba doonaysa inay dad soo ristaagto oo dad wax u sheegato oo faanto waaye wuxuu ihi diridii libax qowdhama waa taariikhahan dhigay diridii libax qowdhama iyo dirirtii buu hodlay haddii aan dagaaladii ka dhacay dib uga faalloodo darandoorri mowada tanaa uga sii dareen dugta haba jarayo eedagale dacadkii gaadheen daan dhagax damabadaha maray dooxa kalashay saacad musii doomi jiray deeqyada yuuska dama ayda nagaha iyo dumarka ooyay hablaha ay dixadu ilmadu dilqiyanayso haddii aan raggoodii la dilin damac ma ooyana asadii u didiyeen inuu dubcad loo xidho lafta daasan duumaha ka badan duurka iyo geedka meydka dufida dubaktiga dugubta sii yaalla daacuun miyaa galay haddaan diradluhu leefin mise waad ku degan reerahan dunima kaa haynin war axmed garaad ful yaa dhigay taarikhdan yaa dhigay war miyadan qof xislo maal miyadan ahayn war ninkaad la hadlaysaa waa ayo war ninkaad la hadlaysaa waa nin kale taariikhaad uu leeyahay wallaahi oo bilaahi oo tallaahi iska daa ugaadhiyahan iska daayay wallaahi maxamuud garaad oo dhan caligeri taariikhda uu leeyahay keliya ka badan taariikhda caligeri sameeyey iyo libinaha uu gaadhay ee iyaga iyo hooyadood iyo dadkii ahaaba ka gaadhay waryaa ninkii lascaad lagu dili jiray ee raaca raara mahad marka disheen maxaa ku sameeyey wallaahi bilaahi tallaahi inta 150 kun oo tignika asaa loos duldhigay baa la yidhi soo wareejiyey maalin cad siilka hooyada wase wallaahi bilaahi tallaahi haddii kale lascaanood way ololaysaa dhinaca kale olol baa dhinaca kale laga qabanaya olol dab baa lagu qabanaya ninkii hooyadiinba ma idinkoo saa laydinku sameeyey oon hadli karayn faysal falaag soo saaranaya faysal waayo waryaa ninka maanta dalkiisa soo geli kara soma waryaa magaalada soo geli kara aniga buu hodlay igu manaya marba ee kabaha idhaqay soma waryaa anigaad soo saaranaysa faysal falaag maxaa u soo saaran faysal falaag waa ayo faysal falaag taariikhdu leeyahay waa ayo ma iman karaa dhulkiisa ma iman karaa maya ma iman karo dabadaa laga dharbaaxayaa hoos buu u fororsanayaa ma iman karo anuu buu hodle marba igu imanaya ninka ugu imanaya buu hodle waa ayo adiga halkaan soo saaranaysaa buu hodle iyo axmed garaad baad af ku taagaysaa ninkaad soo saaranaysaa waa ninka aniga igu imanaya waryaa buu hodle waraya axmed garaad oo halkaa maganta ugu ahaa weeye waryaa ee doorka kaga soo dhumanayay adigoo saa u booga oo boog dhashay oo dhubahanta boogta ku ah la yaqaano baad doonaysaa waryaa nin laandheere dhalay wallaahi bilaahi tallaahi inuu isagu libin gaadho mooyaane aan weligii libin laga gaadhin oo taariikhaha uu ku laandheereeyey dhulbahanta oo dhan ku faano oo waxyaabaha libinaha uu keenay dhulbahanta oo dhan ku faano heer rirka uu gaadhay iyo maansooyinka uu qoray iyo gabyaagada uu leeyahay iyo dadka caankaa ee taariikhda galay ee uu leeyahay oo dhulbahanta oo dhan ku faano wallaahi haddii maanta meeg la qaato wallaahi bilaahi tallaahi haddii iyo barjacal la qaato iyo haddii ogaadaan la qaato iyo haddii marjitaan laga qaato ninka taariikhda la soo qaadanaya waa aniga haddaan maanta halkaa ula dariro gabayada aan dubto aan laabto aan dhado wallaahi bilaahi tallaahi weli yaro dambe oo sheeganaya oo dhanka ballaara oo taariikha allah ku faanaya ma jiro haddaan dhado halkaa ku dubto wallaahi baydan hadlayn oo dib u hadlaynba kalaam hoosna waad kaga toos waad uga baxna toos war taariikhdeeda ku faantaan ama taariikhdaad leedihiin war miyaan dad xis loo caadiya miyadan ahayn
war isla yaaba anaa la yaabane isla yaab dadka maxaad la hortaagantihiin maxaad dadka la hortaagantihiin war idinkiibaa maanta 2020 allahu akbar hayee maxaad ila soo hor istaagaysaan aniga maxaad aniga ii sheeganaysaan aniga waxaad ii sheeganayso kuwaad maanta allahu akbar taa ka hayso aad hoo fursumanad ma u sheegatid war miyadan qof xis loo caadiyay miyadan maal leh xis buu leeyahay qofkaa wararsan weeye ma xis buu leeyahay qofkan xis ma laha qof waa shay weeye walaahi bilahi talaa inuu waa shay kama duwana taariikhaan ku sheegtay libinaan ku sheegtay libinaan inuu gaadhay baan ku sheegtay kuwaan adiga kaa gaadhay baan ku sheegtay oo 150 soo duligay aan buuraha saa kugu saaray aan ku olinaya magaalada yara gabigeeda degan tahay gabigeeda waa olinayaa baan ku sheegtay adigu wax ma sheegan kartaa daba taariikhaad gaadhay gabayo adiga aad leedahay oo dhulbaanta ku faano oo libina ku gaadhay rag uu dhulbaanta ku faano oo libina soo gaadhay ma leedahay adigu waa maya war adoo dad noocaa kaa oo taariikh noocaa kaa oo saa u radan inaad aniga maanta dhan ila soo hor fadhiisato oo wax allaaliya waxaadan garanayn iyo meelay kaa jirto iyo taariikh aadan garanayn aad ka hadasho walaahi bilahi talaahi waa ku damir xumo damir buu leeyahay waa dulli dhalay weeye taariikh buu leeyahay taariikh iyo dad iyo dunya toona ma laha halkaa dhigaan aad iyo aad malaysaa birjahow waan ku maqlayaa aad waa tobanka ugu dambeysay waxaa weeye meesha kaftan xalaalaa ka dhacay aad rag waa isku laandheerayn karaa waxaa weeye markay 27 u dhacdo ka xambaaraysa war qolkaa falow taabta qolka falow taabta سيدا برشاو سيدا mala maqlayaa niyow waxaan moodayay in wax weyn ka hadlayn la ilaaha ila allah iyo caruurtan way arkayay inay qalbi jabayaan oo laabtu go'ayso ay jabayso waa nimanka soo saartay maanta nin wasiir xataa muu noqon wuxuu ka shaqayn jiray wasaaradda arrimaha gudaha allah addoonsana annagu markaan waa kaala tegayaa isku qaada faarax kale oo ninka maxamuud u gaaryahan waxaa ka dhashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wiilkii soo maray ee kan adeerkaayo shaqada siiyay markuu bariyay ee adeerkaa lahaa haddii aad laba wasiir soo adoon yahow adduunka wiilkii laba wasiir soo martay wiilka maanta leh Cali Ciise Cabdi wiilka dhaqaalaha adduunka fadhiisiya adoon ku dhalay wiilka maanta fadhiya FBI-da Mareykanka waa aniga adna waxaad la soo ordaysaa adoon yar oo ka shaqaynayay wasaaradda arrimaha dibadda buu ka shaqayn jiray adoon yar waxaana soo martay 9 saraakiil ee Soomaali ee janan ee Soomaaliya soo marta 9 waa u gaaryaha wayna Cali Shire waa wiilka maanta Soomaaliya u darajada sareeye maku soo maray adiga adoon yow xagga saraakiilnimada maku soo maray wiil xataa u dhigma Faisal Falaalo kuma soo marin adoon inaad tahay waayo korneyl buu Soomaaliya kasoo noqday adoo adoon baa tahay maanta heerkayga marka la eego iyo idinka la isku kin eego heerkayga 9 korneyl baa laga soo helayaa adoon wasiiraa laga soo helayaa dowladda Soomaaliya soo maray laakiin adigu adoon baa tahay oo lagaa soo heli maayo war aniga quriya waxaa laga soo helayaa Siciid Shoodhe Faisal Maxaa Xasan Shiina Maxaad Faarax Bulay adoon ku dhalay oo afartuba ahaayeen korneyladii dowladda Soomaaliya adiguna maanta waxaa la soo orday wiil yar wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqayn jiray ilaa taariikh malihiin war anigu waxaan soo noqday kii kuu magacaabay maanta buuhoodlada aad dugsanaysid baan soo noqday inaad dafle war waxaan ahay qaarajiye wiilkiisu u soo doobiyey dadka inta ku doobiyey ku kaajay ma dhici kartaa inaad aduu dad ku kaajito adoon ku dhalay ma dhici kartee adoon baa tahay ee aniga war laasacaanood baan maanta kaa raafayaa oo gaadho kaaga gurayaa oo berigi horena anugu kaa raafay waa kaa saaray anaa laasacaanood kaa saaray adoon yahow wiilkii kaa saaray ee ku doobiyaya inaad afka la soo gashaa waa adoonnimadaada war wiilka ku geeyey maanta inuu kaa baaciyo laasacaanood aadan mid ku sheegan karin waa caasimada gobolada SSC inaadan mid ku sheegan karin wiilka kuu kalifayso waa aniga maa wuxuu yiri hadday ramagto ee nafluhu raaxa ka cayaawan waxba yeena regreegni hawshiye rumane rafaafaha markii laysla dhaco rabada meel aado nimba meesha uu raaxa galo waa uu rafeystaaye roofaha markii laysla dhacay iyo rag noqotaaye ragga yaaca lagu dhahay adoon ku dhalay
waxaan ahay wiilkii kaa yaaciyay laascano ragga yaaca maanti la dhaho way raqleeyaane adigoo rafaadkii qaba oo ruclaynaya adigoo naftii kaa raqtiri roobadii gooyay adigoo raqlaa wada guro rabas ku yelmay waxba yaadan reegaanahayo ra'abku kugu coodni adoon yahu adoon ku dhalay anigu waxaan kuu geystay baan kuu sheegay war waxaan ahay wiilkii laascanood saa kugu leynayay ee caligeri heer hagar anigu baan saa ugu dhexlaayay maasaan haddana kaa qaxiyey wiilka kalifay baan ahay inaadan maanta caasimada gobolada SSC aadan marku sheegan adoon yahow adoon ku dhalay magaalo aad laami ka degtaa ma jirto adoon baa tahay inaadan qof ilbaxa ahayn taasaa ku cadeyna weligaa wasiir maa soo noqon oo adoon yar baa tahay meel aad wasiir kasoo noqotay dowladda Soomaaliya ma jiro oo adeerkaaba weligaa hal siyaasi kaamuu soo dhalan oo maanta hal laba siyaasi baa kaa dhashay wax la sheego midna waa ninkan ku yiri fakin ma shaqaynayso SSC ee Somaliland iska dhiibay adoon yahow maanta abuuhood la dhex fadhiya midna adoon yahow adoon ku dhalay waa kii intuu madaxweyne ku-xigeen noqday adoon yahow maanta ku noqday dib haddana kasoo bilaabay nolosha ee loo magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhiya bal adoonnimo heerkaa ka gaadhay war indhasheel baad adoon yahow maanta meelu ka baxay lama yaqaano adoon dhaluu ku ahaa adoon dhalay baa tahay horta waxaad ku hadli karto wiilkaaga maanta aniga isoo babacdhigaya wiilka yar ee wuxuu yahay iyo wiil adduunka usoo doodiyey ee ra-iisul wasaare Soomaaliya kasoo noqday ee Soomaaliya taariikh ku leh ee Soomaaliya laga xukumay war waxaan ku iri waxaan xuduud la leeyahay intaasoo heer oo qabiil oo Soomaaliya adi xuduud ma la leedahay waa maya waxaan ku iri adduunka marka loo qaybiyo xagga physicalka laga eego 5 gobol baa loo qaybiyaa Ogo Nugaal value Ogo value Daaxa value waxaan deganahay 3 baan deganahay Ogaan deganahay Ogoli value baan deganahay Nugaal value baan deganahay adna Hawd value baad adduunka ka degan tahay adoon yahow adoon ku dhalay war marka physicalka gobolada Soomaaliya loo qaybinayo Nugaal value baa laga soo helayaa Ogo value baa laga soo helayaa Daaxa value baa laga soo helayaa Goli value baa laga soo adoon yahow adoon ku dhalay intaa ma samayn kartid mana gaari kartid heerkaa laakiin wiilka gaaray waa aniga ma iyo anigu qabiil ee waxaan ahay qaran adoon dhalay baa tahay waxaan ahay wiilka doobiya ee markuu doono doobiya ee cidduu doono ku gardareysa war inaan anigu qaran ahay waxaa kuu cadaynaysaa ismada anigu dagaalka isma raaco oo isma daba yaacee heer qurya oo hadduu doono intuu doono ka degay Naali Axmed oo intuu doono sii maraya ama intuu doono Maxamed Maxamuud intuu ka degay oo intuu doono maraya adoon yahow baa dagaalama laakiin adigu waxaad taagan tahay waan isdaba yaacna miyaad dagaalami kartaa wuxuu yidhi adeerkii wuxuu yidhi rasaatu markay wada dhacdo ee dhabalka ololayo nimba dheega uu kaala galo kaama dhiciseena dharbaaxada ninkii ku dhutaada dhabanka jabisaayay ee kaa dhacdhici maalinta dhaqan ama kaa noqonay adba dhabalka waad wada baqaan sida la dhaho dhewe rasaataha wixii kala dhaciyo dham waxay noqoto adiguba dharbaaxada jimbaad dhamal mooda bal anigu adoon yahow adoon ku dhalay wiilkaa doobiyayaan haye ee maanta war waxaan kusoo agdhigay adduun intaad ka leedahay iyo wiilka Nuur Axmed intuu ka leeyahay baan kusoo agdhigay waadna isku mid waa clab waa same to same adoon yahow ma adduun baad adigu leedahay ma adduun baad sheegan kartaa adoon dhalay baad bal adduun waxaad ii sheegan karto eeg war wiilka maanta taariikh ilaa maalintii soo daraawiishta ilaa maanta war maanta daraawiish xagee ku xusan tahay baan ku yiri adoon yahow aniga marba ha igu soo noqon waxbaa soo wada marba waa dadkiina hurda waa haro war aniga maxaad ii taqaanaa wiil laascaanood qurya degaa adoon yahow laascaanoodna maanta anaa kaa caydiya adiga anaana haysta anaana ku doobiya wiilka maanta dhulbahantoo dhan 2 degmo wada leh intiina ka oo dhan marka la isku kiin daro wiil 2 degmo sheegan kara ay banaanka u yaaliin aniga mooye ma jiro iyo barhka sanaag war markaad maanta leedahay gobolka sanaag rabtay inaad ku faantid oo waxaad adigu leedahay baad ku faantay wax wiil u gaadhay hal leeyahay baad ku faantay adoon yahow adoon wuxuu yidhi waxaan ahay ninkaa jiidalidega ee jeebka kala qaatay nimankaa xadeedkaa fadhiya ee jexlaynaya wiilashaa teleex wada degdegay ee jamlaynaya marba jeebka ay doonayaan jaadku karinaya nimankaa caroolay ugu wacan ee caleynaya hadday caalman noqotana ragga ciidda kicinaya waxaan ahay ugaaryahankan aad kala cararaysa naftaad kala carraabtaanayay ciid iniin noqone caruur yahay ka kaca meeshanaad cadada laysa macanaad maanta
ma adeerkaabaad doqonkii baad soo qaadanaysay aniga ma ogaadeen baad mooday addoon yahow addoonku dhalay ee adeerkaa intuu afka la galay u kasoo xidhmay haddana gabaygii